ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا تيفي ورايا 24 سلام كبعدي إن شاء الله برنامج هذا بالعون دونا حفلة أو لو قبتي مرتين لابد وزير أو كراء وزير كوح برشادة على حاجة ورسمي دولة بنتلان وزير كعافماتك صادقينه سودوا ما يقولون لنا إن شاء الله iyo martida kale waxa kale oo meesha fadhiyo maartay fiqi bashiir asagana dhawaan soo gaaray isla soo dhawaad leenahay والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. إذا فديا وسوء أجيبي حفلة دينا عاوة يجوا ربعين كفايدستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وين السلام يا بدك الصوماليين بالك فقير. قال أنا بدك رير بوتلاند. أنا وهذا موسى كأنه واحد بنشره. جالي هنا سود ومدح ذلك فريق. مدن عبد الولي محمد علي قاس سلام تاس يقدم إن شاء الله. حتى نورك صور وريو ودنكي وحكيت النبض صوماليا ودن بنتلان نبض وين باكتشفتي. أنا حقا أقول جودين هذاكي حرفة عن مامتنا وسمعي أدي ألوم ما سنتي رمانتي وحنا لي وزير الرسول وهذا وزير صديقنا iyo wasiir Ali Haji Warsame dadka Puntland deganna runtii waa ay mudan yihiin in lagu amaano soo dhaweynta dadka Soomaalida hadda kaliya ma ahayn hore u soo dhaweeyeen markii dagaalkii sokeeye oo ka qarxay Soomaaliya oo dhan dadkii soo gaaray ama gobolada hawdashan ama goboladii kale oo Soomaaliya ka yimaadeen dhul nabad ay u yimaadeen nin kasta meeshuu doono dalkii ka degay ilaa haddana ay degan yihiin iyo fiqi bashiir waxaan kaloo mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay xafladda quruxda badan iyo intii maxaan ku radaa gacan ka geysatay siiba jaaliyad والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه في إحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan muhaayay dabageliya soo dhaweyntii iyo salaantii aan ku qaafilay labada wasiir Dr. Sadiq Enow iyo Ali Haji Warsame oo noogu yimid booqasho dalkan Suudaan. waxaan isna soo dhaweynayaa Fiqi Bashiir aqoonta inay noqoto aqoon rasmi ah oo ardadu ay hesho aqoon quality leh waxaan taageersanaa Cabdiweli doorashadii waxaan islahaa Cabdiweli hadduu soo bixi waayo Ali Haji Warsame nambarka labaad igu jirtay kulankan adeerkay oo odaga suldaanka magaalada ma adeer Cabdisaaq ay wacsiin runtii aadan ugu faraxsanahay inaan soo qayb galo wasiirada walaalaha ugu soo dhaweynaya halkan waxaan soo dhaweynaya qalbi walaal oo runtii aan wax kale lagu doonayno aan ahayn inaan soo dhaweyno u jeedinaya waqtigooda qaaliga ah oo ay u soo hureen kulanka aanu caawa ku soo dhaweynayno madaxda halkaan inala joogta laba doctor oo midna yahay Ali Warsame midna yahay Sadiq Enow markii aan Puntland tagay waxaan la kulmay wasiirka caafimaadka waxaana weydiiyay in aan ka shaqayn karo si walaalkaar ah tarka boosaasood
markii aan arkay dhibaatada iyo waxa ka jira dhakhtarka Boosaaso way joogaan shaqaale laakiin ma aha shaqaale sida dadkan Sweden ay u shaqeynayaan oo kale u shaqeeya marka waxaan tagay halka organization-kii iyo caawinaad iyo wixii aan ka qaybgali kara aan ka qaatay oo tabaruc ah isbitaal ka mid ah waxaa directorka nin reer Stockholm aha Farax Goobe waa tabinin sideedii waxaa lagu asaasay in maamul la sameeyo local ah oo dadka mandiqada degan maamul ay u dhameystireen ay sameystaan laguna raadiyo mid guud ee Soomaaliyeed labada qodob baa asaas u ahayd oo runtii founding fathers ama bayaan Royal TV 24 magaalada Stockholm dalka Sweden Puntland labada wasiir waxaan kula dardaarmayaa waan ogahay hawshay hayaan iyo waxqabadkoodii hadda hayaan waxaan rajeynayaa inay sii socodsiiyaan oo meel wanaagsan gaarsiiyaan xagga gabdhaha in loo soo jeesto waa ka dhawaajiseen hadda gabdhaha umlisooyinka ah qiimaha maanta ay muhiim u tahay Puntland in la badbaadiyo waxaan inagu bogaadinaynaa oo kaliya in wax kasta oo la qabanayo idiga hadda dowladii oo dhan ka wakiilka inaad deegaankaas hadda dowlad goboleedka Puntland in dhammaan si garsoor wax loo gaarsiiyo ha noqoto tacliin ha noqoto biyo hadda noqoto caafimaad wax kastaba ama horumarka intaba in la gaarsiiyo inaa meeshii lagu qaybinayo baa joogtaa hay'ado kale oo ay ka mid yihiin hay'adda sida iyo wasaaradda arrimaha dibadda magaalada Stockholm aan odayaasheedii iyo dadkeedii miidda ahaa aanu halkaan kulankaan maaragtay si fiican u soo wasiirka waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha Royal TV meel ay joogaan waxaan si gaar u salaamayaa bulshada Sweden gaar ahaan Stockholm iyo inta u dhow oo halkaan igu soo dhaweysay maanta ujeeddada aan ku Sweden waxay ahayd in aan rayn la kulmo jaaliyadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Puntland ee degan Stockholm iyo dalkan Sweden oo meel kale ka tegi doono waxaana la socota arrimo fara badan oo khuseeya waxbarashada guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyo horumarka dalkii intaan joogana inaan uga warramo jaaliyadda meesha ku marayaan TV magaalada Stockholm Cabdiqaadir Sallu Royal TV Royal TV Royal TV Royal TV Royal 24